ardayda soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan sharaxno cashirkan chemistry-ga ee fasalka form 4 wuxuuna ka hadlayaa wax loo yaqaano aromatics. Marka laga hadlayo hydrocarbonska waa la kala qaybiyaa oo dhowr qaab ayaa loo fiiriyaa marka la kala qaybinayo. Mar waxaa laga fiirinayaa structure-koodii, mar waxaa loo fiirinayaa source-ga laga helo, marna waxaa laga fiirinayaa bondska ama dabarada. Marka laga fiirinayay source laga helo waxaa loo qaybinayaa aliphatic iyo aromatic. Marka aliphatic hore usoo aragtay, marka maanta waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaano aromatics. Dhamaadka cashirka ardayga waxaa laga rabaa intaan inuu sheegi karaa, uu qeexi karaa wax loo yaqaano aromatic compound, uu sharxi karaa bondska benziinada ku dhex jira, uu magacaabi karaa aromatic compound. Haddii aan sii aadno tacriifta ama definition-ka aromatic compound ama aromatic hydrocarbons, waxaa la dhahaa aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are hydrocarbons waa isku dhisyo ka samaysan hydrogen iyo carbon which have pleasant aromas, kuwaasoo leh caraf wanaagsan ay leeyihiin. Marka urtooda ama caraftooda waa mid wanaagsan oo carfayso. For example, waxaa ka mid ah the pleasant smell of cinnamon, vanilla and jasmine. Saddexdaanba waa dhir magacoodii waaye. Cinnamonkan iyo vanillahan iyo jasmine-kaba waa magac dhir. Dhirtaan marka way carfaysaa, inay carftana waxaa sababa marka aromatic compound ayaa sababa. Waad arki kartaa haddii aad geliso internetka aad geliso, waad arki kartaa haddii aan tusaale ahaan aan raadino cinnamonkan oo kale wuxuu u egyahay qarfiyehelka ama qarfaha oo kale waaye. Mar aan fiirino cinnamon oo kale, cinnamon plant image-ka aan fiirino marka geedkan aad ujeedaan waa marka wuxuu qaab egyahay bahalkan shaaha lagu darsado oo kale. Wuu carfaa marka caraftaas uu carfana waxaa cause gareysa marka ama sababa wax loo yaqaano aromaska ayaa ku dhex jirta ama aromatic ayaa ku dhex jira. Marka dhirtan loo yaqaano cinnamonka iyo vanilla iyo jasmine-ta are all caused by aromatic compounds. Marka caraftaa meesha ku jirto waxaa sababa marka waxaa ku dhex jira organic compound ayaa ku dhex jira. Aromatic hydrocarbons are defined waxaa lagu qeexaa inay yihiin cyclic organic compounds. Waa isku dhisyo organic ah kuwaasoo ah cyclic. Hadaad aragto horaan usoo baranay waa kuwa ringi ah ama kuwa wareegsan. Waa isku dhisyo organic oo wareegsan oo cycle ah which contain at least waxayna ka kooban yihiin ugu yaraan one aromatic ring. At least ama ugu yaraan waa in laga helaa hal wareeg aromatic ah that resembles benzene, kaasoo noqonaya marka benzene. Ugu yaraan aromatic waa in laga helaa hal wareeg oo ringi ah, kaas oo qaab ekaanaya sida benziinka oo kale. Aromatic hydrocarbons are classified waa la kala qaybiyaa. Inta waxaa loo kala qaybiyaa two main types, laba qayb oo waaweyn, benzenoid iyo non-benzenoid. One waxaa waaye benzenoid, number two waxaa waaye non-benzenoid. Benzenoid maxaa la dhahaa? Benzenoid waxaa waaye aromatic hydrocarbonska haddii laga helo hore waxaan soo sheegnay aromatic hydrocarbonska waxaa qasab ah ugu yaraan in laga helo aromatic ring. Marka aromatic ringiga laga helayo haddii uu noqdo benziin ring uu noqdo ka waxaa loo yaqaanaa benzenoid. Hadduu noqon waayana uu wax kala noqdo wuxuu noqonaa marka non-benzenoid. Marka benzenoidku waxaa qasab ah in laga helo benziin ring. These are kuwani aromatic hydrocarbons waaye, waa aromatic waaye waana hydrocarbono oo hydrogen iyo carbon bay ka kooban yihiin that contain kuwaasoo ka kooban benziin ring. Waxay ka kooban yihiin marka sida wareeg oo benziin ay ka kooban yihiin structure-koodii. For example, waa kan this is the benzene ring. Benziinka sidiisa wuxuu ka kooban yahay 6 kaarboon iyo wuxuu ka kooban yahay hydrogen ka kooban yahay benziinka.
hexagon-kan aa ujeedaan ama lix-geeskan gees walba wuxuu u taagan yahay hal carbon hal hydrogen. Inta carbon hydrogen aa inta yaal carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen meel kasta carbon oo kaliya hydrogen meel walba oo mataqaana hexagon kamid ah point walba mataqaana carbon hydrogen ayaa yaala. Marka wuxuu ka kooban yahay 6 carbon iyo 6 hydrogen. Marka kan marka waxaan leenahay waa benzenoid waaye lianna maxaa u dhahan benzenoid wuxuu ka kooban yahay benzene ring. Reason waxaa loo yaqaanaa toluene haddii benziinkan kor loogu dhajiyo methyl like this waxaa lagu magacaabaa ama mataqaana la dhahayaa toluene. Toluene-kan hadda benzene waaye benzenoid waaye muxuu u noqday benzenoid lianna wuxuu ka kooban yahay maxaan ku irahdaa benzene ring ayuu ka kooban yahay saas ayaa wuxuu u noqday marka benzenoid u noqday. Okay. Kan labaad waxaan nidhi non-benzenoid waaye kuwa aan benzene ka koobnayn. These are aromatic hydrocarbons that do not contain kuwa aan ka koobnayn benzene ring. Benzene ring ma laha kuwan structure-koodii benzene ring ma laha. Saddexdan ayaa ka mid ah. Benzene ring ayaa waxaan nidhi 6 gees waa hadda saddexdan 6 gees ma 5 gees waa 1 2 3 4 1 2 3 4 5 marka ma ahan benzene ring mataqaana ma ka koobna saa daraadeed waxaa loo yaqaanaa non-benzenoid. Kan waxaa loo yaqaanaa furan typhene iyo pyrrole. Marka non-benzenoidka halkaa laguma qaato meekadaan ku arki doonaa hadda inta waxaa kaliya ku baran doonaa kuwa benziinka. Kuwan marka waxaa loo yaqaanaa aromatic way yihiin laakiin benzene ma ahan waa non-benzenoid. Wuxuu yahay marka in this level class-kan oo form 4-ka we will study waxaan ku baran doonaa benzenoid aromatic only waxaan ku baran doonaa marka kuwa leh benzene ring. Waa ka the basic building structure of benzenoid hydrocarbons waxaan kaloo ku baran doonaa qaabka asaasiga oo uu samaysan yahay structure-ka benziinka. Okay hore aan soo socono benzene and its structure halkaan waxaan kaga hadli doonaa maxaa la dhahaa benzene muxuu yahay yaa soo saaray iyo its structure qaab dhismeedkiisa. Benzene was discovered waxaa soo saaray ama soo ikhtiraacay by Michael Faraday in loo yaqaano 1825 ayuu soo saaray and given wuxuuna siiyey ama and given its structure qaab dhismeedkiisana waxaa sameeyey ama siiyey by Frederick August Euler ninkan ayaa siiyey marka 1865 ayuu mataqaanaa siiyey qaab dhismeedka. Waxaa soo saaray ama soo helay Michael Faraday laakiin qaab dhismeedka waxaa u sameeyey misana siiyey Euler ninkan loo yaqaano marka sanadka waa 1865. Saan hadda sheegnay benziinka sidiisa wuxuu ka kooban yahay carbon iyo hydrogen waa 6 carbon iyo wuxuu ka kooban yahay 6 hydrogen uu ka kooban yahay. Marka 6dan carbon 6dan hydrogen waxaa laga dhigayaa qaab oo ring waxaa laga dhigaa hexagon aa laga dhigaa. Waxaan ka dhigaynaa qaab ring ayaan ka dhigaynaa. Okay. Marka waxaan ka dhigaynaa qaab ring ayaan ka dhigaynaa. 1 2 3 4 5 6 waa marka waa ka 6 carbon mid carbon kastana waxaa ku dhigan marka hal hydrogen aa ku dhigan. Carbon kasta wuxuu yeelanayaa dhoodi hal hydrogen. Sawirka wuu ku muuqan yahay laakiin qaabka u yeelan ku tusaaya. Marka waxaa ogaanaysaa saan aa loo sawiraa. Mida kale si isdhaaf ayaa waxaa loo siinaa marka bondiska si isdhaaf ayaa loo siinayaa. Mar waxaa laga dhigaa single bond meel waxaa ka dhigaa double bond. Inta single bond inta waxaa ka dhigaa double bond. Kan hadda waxaa waaye single bond halkaan waxaa ka dhigaa double bond. Sawirkan fiiri marka 1 2 3 4 5 6 carbon waaye. Carbonada marka is haystaan fiiri meelna waxay iskaga haystaan double bond meelna waxay iskaga haystaan single bond. Carbon walba fiiri mar single bond kan ku haystaa kan kale wuxuu ku haystaa double bond waa ka laba dabar hal dabar. Kan imow kan laba dabar ku haystaa hal dabar. Kan imow korkaan hal dabar hoos waa ka mataqaanaa dhinaca kale laba mataqaanaa bond ama laba dabar. Saas waa marka. Carbon walbana wuxuu haystaa marka hal hydrogen haystaa. Saas waxay ku noqonaysaa marka 6 carbon iyo 6 hydrogen. Waa kana 1 2 3 4 5 okay